sidaa gudoomiye sheegay insha Allah taala waxaan soo booqanay Yuusuf Cabdi Gaboobe oo nin runtii qaranka miisaan weyn ku leh qiimo badan ku leh dadkii soo halgamay qaranka soo halgamay suxufi weyn oo caan marka Soomaaliland la sheegayo dadka ugu caansan xagga saxaafadda tiirarka weyn saxaafadda kamid ahaa nin qiimo badan oo runtii xag walba oo loo eego bulshada qiimo weyn ku leh Yuusuf Cabdi Gaboobe runtii inuu halka ku dayacan yahay oo aan la daryeelin oo la dirin oo wax loo qaban maanta runtii aad bay ceeb ugu tahay Soomaaliland iyo qaranka dadkii mudnaaba ahayd runtii wax loo qabto in maanta qaarkood halka kan dhakhtarkan ku cadilan inuu nooca ku yihiin oo Yuusuf Cabdi Gaboobe kamid yahay qaar gaajo isu dildilaan qaar ay ku baqteeyaan suuqyada oo sixir bararka iyo dhibaatada taagan ku baqteeyaan oo awoodeenu meel kasta ha joogtee dareenkeenuba aanu la jirin caadifadeenu runtii ayaan daraway waxaan leeyahay xukuumadda iyo waxa weeye xubnaha gacanta ku haya waxa weeye xilka madaxweynuhu ugu horeeyo qaranka xil baa idinka saaran qarankiina dhibaatada noocaas baa ka taagan dadka la shaqeynaya madaxweynaha la shaqeynaya garbiisana waxaan leeyahay ha guul daraynina madaxweynaha ha guul daraynina qaranka ha guul daraynina haddii qarankeenu halka marayo aan ay caadifadiin iyo dareenkiinu ka maqan yahay waa ayaan darawin weey marka waxaan leeyahay waxbaanu la qaban doonaa wixii awoodeedu tahay waxaanu leenahay ha laga qayb qaato oo xukuumaduna ka qayb qaadato haddii ka qayb qaadan waayeen dadka reer Soomaaliland waa ku filan maatintii